بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيدي فخامة الرئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله فرماجو، سيدي معالي رئيس مجلس البرلمان، سيدي معالي رئيس وزراء، أصحاب السعادة والمعالي، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يشرفني أن أتقدم نيابة عن أسرة المرحوم الوالد عبد الرحمن عمر عثمان إنجنيريسو بخالص الشكر والامتنان إلى السيد فخامة الرئيس وإلى خالص الشكر والامتنان إلى جمهورية فدرال الصومال. مدني madaxweyne mudanyaal iyo dhammaan shacabka Soomaaliya, marka hore waan iska tacsiyeynaa geeridii ka timid Allah naxariisto duqa magaalada ana gudoomiye gobolka Banaadir aabahay Cabdiraxmaan Umar Usmaan Injineeriso. Allah naxariisto aaba Cabdiraxmaan ma uusan ka dimin oo kaliya qoyskiisa, laakiin waxa uu ku geeriyooday shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed. mudane madaxweyne, waxaan ummadda Soomaaliyeed kaga madax celinaya ducada alla garab taagan yahay intii uu hospitaalka ku jiro iyo markii uu geeriyooday kadib iyo maanta oo aan taaganahay inaan duceyno. fajazaakum allahu khayran. madaxda dowladda waxaan kaga madax celinayaa dadaalkii iyo juhdiga ay ku bixiyeen aabahay. mudane madaxweyne, Allah naxariisto aabo, waxaanu ahaa nin shaqooyin badan ku soo qaabay dowladda. waxaanu mahad celinayaa dhammaan intii la soo shaqeeya aabahay Injineeriso oo ku garabgiisaan in shaqadiisa uu ka guul gaaro. shacabka gobolka Soomaaliya, waxaan idin baaqayaa inaan halkeeda ka sii wadaan howladii iyo shaqadii uu caasimadan ku wada aabahay si caasimadan u noqdo mid horumarta. mahadsanid mudane madaxweyne. If you allow me, Your Excellency, Mr. President, just to express a few words in English. Okay.